السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا channel ku jirta aad baad u salaamantihiin meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalka maantu wuxuu ku saabsan yahay kalsoonida nafta kalsoonida naftu waa shay aad u muhiim ah haddii ay qofka ka dhiman tahayna waxa ka dhinaanaya wax qabad badan iyo fursado badan oo uu qofku ka faa'iideyn lahaa oo uu naftiisa ku horumarin lahaa muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay 5 hab oo aad u tayo badan oo aad kor ugu qaadi karto kalsoonida naftaada balse inta aynaan 5 qodob u galin ka hor waxaynu qeexaynaa waa maxay kalsoonidu kalsoonida naftu waa aaminaada aad aaminsan tahay awoodahaaga qiimahaaga qofeed go'aanadaada iyo dhammaan dhinacyada noloshaadaba inaad heer ka gaari karto adiga oo adeegsanaya awooddaada si kooban kalsoonida naftu waa inaad aaminsan tahay awooddaada oo Ilaahay ku siiyay awooddaana aad wax ku qabsan karto qofna kuma uusan dhalan kalsooni bilaaxad ah haddii aad la kulanto qof leh kalsooni cajiib ah waxaad ogaataa inuu ka shaqeeyay oo uu dhisay waqti badan galiyay kalsoonida naftu waa xirfad aad baran karto oo aad dhisi karto kadib markii aynu ogaanay waxyaabo ku saabsan kalsoonida nafta iyo qeexitaanka kalsoonida nafta imika waxaynu u galaynaa 5 hab oo aad si tayo leh kor ugu qaadi karto kalsoonida naftaada habka koobaad waa waxa loo yaqaan positive self talk ama inaad naftaada ula hadasho si positive ah oo togan af Soomaali ahaan waxay ku noqonaysaa si togan af Carabi ahaanna waxay ku noqonaysaa si iijaabiya naftaada kula hadallo wanaagsan inay dadka kale hadallo ammaan ah inoo soo jeediyaan waa wax wanaagsan balse waxa ka sii wanaagsan marka aad adigu gudahaaga ka dareemayso qiimahaaga qofeed kula hadal naftaada hadallo naxariis iyo dhiirigelin leh ogowna xidhiidhka ugu muhiimsan ee aad noloshaada oo dhan yeelanaysaa waa ka aad naftaada la yeelanayso xidhiidhkaas ka dhig mid qurux badan oo wanaagsan talaabada labaad samee waxyaabaha ku cabsi geliya ama aad ka cabsato qof kasta oo inaga mid ahi wuxuu leeyahay waxyaabo uu ka cabsado habka ugu wanaagsan ee aad uga guuleysan karto waxyaabaha ku cabsi geliya waa inaad wajahdo oo aad ka adkaato adigu inaad maalin walba qabato hal shay oo ku cabsi geliya waxay kuu suurto gelinaysaa inaad kor u qaado kalsoonidaada ka bax xayndaabka raaxada ama waxa loo yaqaan comfort zone-ka oo baro waxyaabo cusub oo ku cabsi geliya qodobka saddexaad dhigo ama samayso hadafyo yaryar ama waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo small goals dad badani waxay saluugaan awoodahooga sababtoo ah waxay dhigtaan ahdaaf waaweyn ama ay adag tahay in si sahlan lagu gaaro taasi oo sababaysa inay niyad jabaan ku bilow inaad dejisato hadafyo yaryar oo aad ku gaari karto si fudud kadibna joogtee marka aad ku guuleysato hadafyada yaryar waxa kuu fududaanaya inaad u gudubto kuwa dhexe iyo kuwa waaweynba qodobka afraad ama habka afraad ee aad kalsoonida naftaada kor ugu qaadi kartaa waa inaad samaysato xuduudo nafeed ama waxa afka Ingiriisiga lagu yiraahdo personal boundaries baro inaad tiraahdo kelmadda maya wixii aan faa'iido kuugu jirin bar dadka kale inay ixtiraamaan xuduudahaaga qofeed inta badan ee aad tahay qof leh xuduud oo naftiisa iyo waqtigiisa ixtiraama waa inta badan ee aad noqonayso qof si buuxda iskugu kalsoon talaabada shanaad ama habka shanaad ee aad kalsoonida naftaada kor ugu qaadi karaysaa waa ogow inaysan dadku waxba ku dheerayn ama waxa loo yaqaan equality mentality dadka kalsoonidoodu hooseysa waxay aaminsan yihiin inay dadka kale ka awood badan yihiin ama ay ka maskax badan yihiin iyaga intii aad fikradan aamini lahayd waa inaad u aragto inay naftaadu dadka kale la mid tahay dadka kalena aanay waxba ku dheerayn kaana wanaagsanayn aamin inaad dadka kale la awood tahay waxa si degdeg ah kor ugu kici doona ama kor ugu qaadmi doona kalsoonida naftaada muuqaalka maantu intan ayuu ku eegyahay waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan wuxuun ka faa'iiday fadlan like nagu dhiirigeli commentiga noogu reeb wixii aad su'aal iyo talo iyo soo jeedin noo hayso aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan fi amaanillah